عبد الرحمن مقال وبربك فرداء يا كمدا دليرada iyagu noloshaasi ku soo barbaaray ee ku soo koray balse noloshooda dhistay ilaa ay gaareen nolosha ay meel sare ka istaageen asoo bal soo dhawow waan dhawahay walaalo magacayga waa Ismaaciil Cabdi Raxmaan waan ku dhawahay barnaamijka arrimaha qoyska waxaan rabaa inaan ka hadlo burburka qoyska khaasatan aniga soo saameeyay anigu waxaan kamid ahay dhalinyarada ku soo koray family problem ee waalidkoogu iyagoo kala tagay soo aan qaaday soo aqliistay aniga hooyadii iyo aabahay waxay kala tageen anigoo 5 sano jira haddaan qisadeeda ka waramo kadib 6 baan ahayn caruura hooyo aaba markay kala tagayeen hooyadii iyo aabahay waxay ku heshiiyeen inaan 6dii kala qaataan hooyana 3 qaadato aabana 3 qaato si loo kala qaybsado caruurta kadib laba wiil 4 baan habla ku nahay marka hore hooya 6 caruur wada haysay oo aaba kala timiday aaba Itoobiya jiray hooyana Soomaaliland Hargeysa joogtay kadib hooyo 6dii markay haysay marka hore iyada waxay rabtay inay 6 caruur wada hayso oo iyadu koriso laakiin adigu problem jiray dartooda aaba wuxuu diiday inuu biilkii bixiyo reerka hooyana taladii waxay ka dhigtay in la kala qaybiyo oo 3na aaba qaato 3na hooyo qaadato kadib hooyadii maadaama iyada haysay caruurta 6daba wada haysay waxay la hadhay labadii hablood ee waaweynaa iyo inanta ugu yarayd aniga oo inana iyo labadii wiil waxaa la nagu daray 3 aaba qaadanay marka dhibaatada ugu badan aniga igu soo dhacday aabahay baa la geeyay waqtigan yaraa aabahay baa la koray maasha Allah si fiican buu soo koriyay waxba i baray laakiin dhibaatada la soo kulmay waxay tahay inan baan hay hooyo laan ma noolaa karo guriga aabahay wuxuu ahaa qof shaqeeyo oo subaxdiina maqan habeenkii 9 habeenimo soo hoyda marka waxaan noqotay inaan gurigii anigu keligii joogo oo xaasi aabahay guursaday iyo anigi labadii wiil maadaama wiil lahaayeen labadii wiil aaba ka haysan jiray wiilka ugu weyn isagu guriga ma iman jirin inta badan wuxuu joogay suuqa iyo meheradaha aabo wiilka yaraa aniga guriga soo hadnay wiilka yaraana intiisa badan isaga laftirkiisu wiil buu ahaa aabahay uu la socon jiray aabahay uu la joog jiray kadib aniga soo hadhay anigi meeshii waxaan ku noqday qof ku dayacan ilmo yar oo hooyo haysan oo walibana gabadha dareemi karta waxbarasho la'aan bay u dhacday inuu aabahay madrasad quraan biigay iskuul layguma darin waxbarasho kale layguma darin teemaan arag qof attention siiyo iraadiya waxay noqotay maalintii waqtigu intuu ka tiri lagiyo oo dhan ina waqtiyada roob ku daayaan ina tooxyada ku soo ciyaaro anigoo gabadha habeenkii baa soo hooyanaya tobanka habeenimada toonto waqtigiyada habeen madow ah sida meelaha u soo taaganahay dibadaha ugu soo ciyaaray anigoo waliba ilmo yar oo naqan markaas aad u yar 10 sano aan gaarin baan habeenkii oo dhan meelaha soo wareegaya guriga soo noqonaya waan imanaya qof ismagay weydiiyo waxaan ku maqnaa qof ima hagaajiyo timahayga qof ma hagaajiyo jirkayga qof ma hagaajiyo aabay 9 habeenimo imanaya uu seexanaya diwaanin dareemi kartaan anigii baa guriga ku dhex dhibaatooday alxaasin waan weynaaday waan koray waxaan dareemay inaan hooyadii joogin oo hooyadii ay magaalada ka maqan tahay aabay waan u sheegay arankii waxaan ku dhaabo waxaan rabaa inaan hooyadii u tago waan hooyadii la joogo maadaama aan inaan hay aabahay markii hore uu iga diiday laakiin markii dambe way ogolaaday awowgii hooyadii dhalay baa la soo raaciyay oo Itoobiya iga soo kaxeeyay Hargeysa keenay hooyadii baan u miday hooyadii markaan u miday hooyadii iyo aabahay heshiiskoodu wuxuu ahaa inuu aabahay 3 haysto hooyadiina 3 haysto laakiin aan waxa waxba ma weyn oo ilmo yar baan markii kala tagay hooyo markaan u miday habeenkii markaan guriga soo hoyday subaxnimadii gaariga la saaray Itoobiya guriga aabay baa dib loogu celiyay mar labaad haddana sideedii baa dhacday waxaan hooyadii baa rabaa aabahay dib gaariga soo saaray Hargeysa dib u soo noqday hooyadii baan u miday marka sababtu ku celinayna waa heshiiskan dhex yaala sababtu hooyadii celinaysa waxay ahayd hooyadii aabahay maadaama aabahay diiday inuu biilka bixiyo hooyadii talada waxa ku geysay inuu 3 haysto iyadina 3 haysto aan la isku imanin kadib aabaan u tagay waxaan ku dhaabo anigu hooyo rabaa inaan la joogo ma raba inaan gurigaaga joogo iyo xagan way soo direen Hargeysa miday Hargeysa hooyadii markaan u miday hooyadii sideedii bay samaysay oo waxay tiri anigu ma haynayo maadaama aan aabaa ku heshiinay inuu 3 haysto
anuu saddexdeeda waan haysanaya asagu saddexdiisa haysto adugu subaxnimadii baa mar labaadii la diray oo gaariga la saaray Itoobiya ku noqday aabay baan u tagay aabay waan diiday inaan la joogo waxaan idhi ma joogay xaggan anigu waxaan rabaa hooyadii ina hooyadii la geeyo aabahay u diiday wixii uu hooyada ku soo celisay laba jeer oo hore mar dambe lagu diray iska joog awowgay hooyadii dhalay baan u sheegan ku dhaab awow hooya rabaa in la geeyo awowna u diiday waxa la sheegay in hooyadii xaafadii deganayd ka guurtay oo meel kala degtay kadib waxaan sameeyay inaan guri aabahay Itoobiya oo jooga soo baxsado on anigu waliba aad u yar oo kala garanaynin dhulka wadanka magaalada deena xagana Soomaaliland tahay xagaasna Itoobiya tahay oo kala garanayn gaariga soo raacay xaajid baan ka soo raacay Hargeysa mitay hooyadii waan mitay guriga hooyadii markaa ma garanayo hooyadii waxa jirta macluumaad bay hayd iskuul bay dhigi jirtay kadib inaan gaariga markaan ka soo digo inaan Hargeysa imaado inaan gaari iskuulkii magaciisa xasuustaa mugtay garanaysaa kadib iskuulkii baan imiday iskuulka hooyadii ba macluumaad ka hayd markaa waqtigan iskuulka imanayo hooyadii way maqnayd inuu walaashaygu in iskuulka joogtay iskuulka hortiisa aan imiday anigoo ilmo yara oo magaalada kala garanaynin inna garanaynin iskuulka agtiisaan fadhiistay ardaydii baan u sheegan kuri waxaan rabaa gabadha magaca la yiraahdo in iskuulka la iga yeero waa la igu yeeray gabadh walaashay oo weyn bay iskuulka joogtay markaa gabadhii walaashay hayd markay aragtay way iska ka qarisay maadaama ay iyadu weyneyd way ogtahay xaalka sida jira waan fadhiyay waxa la igu yiri iskuulka wax laga soo baxayaa 5 galabnimo markaan Hargeysa soo galin waa 1 duurnimo 6 subaxnimo aan ka soo baxay Itoobiya ilaa 5 galabnimo waxaan fadhiyay iskuulka hortiisa waliba anoo ilmo yar aad u yar hatta intaan jiro ma xasuusto waan sugay gabadhii walaashahay markay ka soo baxday way iska ka qarisay ardaydii way ku dhaxdhuumatay way iska ka qarisay anoo meesha sidii 5 galabnimo fadhiyo oo sugaya sileynatiba ku soo baxaysa inantii markay soo baxday ay iska ka qarisay ardaydii way sheekay ugu inantii aad sugaysay way tagtay xagee marasaayo wadadaas bas ka raacisay waan ka daba cararay inantii baan u tagay waxaan ku uri walaal waanige waxaan rabaa gurigii maadaama guriga guurteen aan garan waayay waan soo baxsaday aabinay mooyana gurigiisu gabadhii walaashada way soo kaxaysay gurigii bay keentay hooyadii oo markaas la guursaday oo meero kala haysata saddexdii hablood walaalaha in la joogaan hooyaan u imiday waxaan ku uri hooyo aabbo waan ka soo baxsaday mara rabay inaan aabbo la joogay waxaan rabay inaan adigu la joogo hooyo waxay ku tiri anigii aabbaha go'aan baan gaarnay inaan isaguna saddexdiisa haysto aniguna saddexdeeda haysto marka aabbaha ku noqo aabbaha la joog aniga hay imanin anuu nin kale aan guursaday nolol kale aan samaystay aabbahana ma ogola inuu idin biiliyo maadaama uu saddexdan kaleba biilin waayey adigu afarna kuma hayn karo adigu waxa dhacday inaan ku dhaho hooy aabbaha la garaaco oo aabbaha loo sheegay inaan kula joogayaan aabbaha la wacay waxa lagu yiri inantan yara soo baxsanaysa te waa ilmo yar hayla joogtay biirka bixi maadaama aanu saddexdii kala hayo aabbo wadiiday wuxuu dhaanu biir ma bixinayo hataa saddexda caruura aad haysatana ku darisada afarka ga dhigsina waa alxamdulilah haddaanad ku daraynood haynayna iska soo celi hooyaday sidii bay samaysay subaxnimadiiba dib gaariga lay saaray Itoobiya lagu celiyay sideedii baa sameeyay wanaamu sugay aabahay iyo reerkii iyo dadkii u dhambeeyay culuubay waan diiday waxaan dhaan hooyadii baan soo arkay walaaladii baan soo arkay ma joogay magaalada ee waxaan rabay inaan hooyadii la joogo oo walaaladii la joogo waxaan isku dayay inaan aabbahay ka dhaadhiciyo aabbahay wuu diiday taas wuxuu dhaan biil ma bixinayo hooyadiina way diiday inay hayso mar afaraad baan isku dayay waa soo baxsaday waana mid Hargeysa mid hooyadii baan u sheegay wax ku hooyo aabbo waan ka soo baxsaday mana rabin inaan aabbo la joogo ee waxaan rabaa inaan hablaan la joogo haddii kale xataa lagu celinay aabbo inaan hal raaciyo
dee maadaama aan inan keligay ahay meesha ku dhibaatooday cidi timaa iga hagaajinayn cidi i daryeelaynin aabahayuna gurigii joogay inuu yahay dee qof subaxdii baxaya oo habeenkii 9 habeenimo soo yinay adigu hooyaday mar labaad markii dambe wax isku dayday in aabahay ku qanciso inuu biilka bixiyo si aan afarteeda hablood meesha uga joogno aabahay waa la hadlay waa loo sheegay waxa lagu yiri inanta yara soo baxsanaysa ha joogtay waxbarasho la'aan baa haysee biilka bixi aabahay wuu diiday wuxuu raama hablaha wada haysanaysa ama wadi soo celinaysa inantaas adna saddexdaada haysoona saddexdeeda haysanaya waxa dhacday inaan aamus waayo oon ooyo oon qayliyo oon diido in Itoobiya lagu celiyo inaan guriga aabahay dib lagu celiyo dhibaato fara badan inaan guriga ka dhex qayliyo maadaama hooyaday reer kale leedahay nin kala qabay hooyaday hal kale markay weyday labadii hablood eega waaweynaa baa raaciyay oo lagu wiri kaxeeya balidiku oo ka soo dhaadhicay aabaheed inama aabaheed la joogto ama ina bil la soo diro si waxbarashada nolosha lagu dabaro aniga iyo labada habloodayga waaweynaa bay Itoobiya ku noqonay guriga aabahay baa tagnay aabahay baa u sheegnay waxaan ku nidhi aabo waxaan rabnay inaan hooyadii la joogo labadii hablood kale waaweynaa bay la socdaa dee aabo biilna sii aabahay wuu diiday kadib hooyadii waxay xal ku keentay in aniga ay diido inaan guriga joogo marka aabahay iyo hooyadii way tanaasul weyday oo way diiday inay ii tanaasusho ay tiraahdo ilmaha yar soo baxsanaya ee kulba Itoobiya ka imanaya laba wadan soo kala gudbaya iska daa aabahayna wuxuu diiday inuu tanaasulo waraada ilmaha yar soo baxsanayso hooyadeedu daa labadu tanaasul waayeen waxa dhacday inaan Itoobiya muddo markaan joogo haddana soo baxsado oon hooyadii u imaato waan ooyey waan qayliyey wax kasta waan sameeyey hooyo waan u sheegay dee heer waxaan gaaray xataa haan waanan gaaray hooyadii rabitaankaan rabay hooyadii darteeda hooyadii haddana wax isku dayday in aabahay dib ku qanciso inuu biilka bixiyo aabahay waa lala hadlay waxa lagu yiri inta reer joogto bale biilka bixi aabahay wuu diiday hooyadii taladeedu waxay ku soo goysay mar hadduu aabahay diiday inuu biilka bixiyo inaan anigu guriga ku soo gudin ana waan diiday in aabahay ku noqdo oo waxaan idhi waxaan rabaa inaan hooyadii la joogo dhibaatada ugu daran markaas ay ku dhacday aabahay wuu diiday hooyadiina way diiday inaan guriga joogo waxay noqotay inaan igu dhanbaa lagu diraya oo Itoobiya lagu diraya ama Hargeysa gal ilma yar baan saad baan u yaray markaas hooyadii anoo la jooga baa waxaan u sheegay waxaan ku hooyo bal markuu ugu dambeysay aabahay waa anigii maqashay inuu diido de markaas ugu dambeysay sidii baa dhacday oo aabahay baa la wacay waa loo sheegay waxa lagu dhina tiireed inay soo noqoto weydiiday biilka ma siinaysaa guriga ha joogtay bise biilka siinmaysid aniguna magaalada ku sii daaya aabahay wuxuu yiri anu biil ma siinay hooyadiina waxay tiri hadduu aabahay biilka bixinayn anagu ma haynayo dhibaatada ugu darnata markaas ay dhacday gurigaan joogaa hooyadii Hargeysaan joogaa meesha ma kala garanayo magaalada ma kala garanayo ilma yar baan ahay dee familygayga kale magaalada degan xataa ma garanayo Hargeysa iyo Itoobiyana dee ma kala garanayo meesha inay Soomaaliland tahay meeshaan ka mid inay Itoobiya tahay kiriyaata waxaan garanayaa inaan Hargeysa joogo Hargeysa hooyadii joogto hooyadii waan beriyey waan ooyey waan qayliyey waan u sheegay wax ku hooyo kuma noqon Itoobiya Hargeysana qof kale kama garanayo oo iyadan u imid soo maxay family magaalada degan yahay laakiin ma garanayo waan isku dayna ku qanciyo hooyo laakiin aabahay iyo hooyadii xumaantii dhexdooda taalay ay hooyadii diiday inaan guriga joogo aabahayna hooyadii dhibaatadii dhexdiisa taalay buu diiday inuu biilku bixiyo
aabbahay wuu tanaasul waayey oo wuxuu garan waayey inuu yidhaahdo tilmaha yar iska daa hooyada la joogta hooyadayna waxay garan weyday inay tiraahdo inanta yare soo baxsanaysa aabeediisa iska daa iskala kaa joogta waxaa dhacday labadoodiiba markay diideen hooyo habeen shalay oo kale nimid hargeysa 10 habeenimo weeyaan way timid gurigaan oo fadhiya waxay ku tiri hooyo mad ku noqon aabaha waxaan may kuma noqonay xagee tegi hadaba maxaad samaysid waxaan rabaa inaan idin kula joogo xataa waxbarasho ay ku darin xataa guriga waxba yana ka cunin haddiiba dhibaatadu tahay inaa bii la bixiyo oo guriga cuntadii iyo waxbarashadii loo baahan yahay waxbarashadana la iska daayo cuntadana la iska daayo keliya haddaan iska joogo guriga way diideen hooyo waxay tiri dhibaatadu badan aabbahabaa keenay markii horena aabbahabaa diiday inaan idin wada haysto iminkana isagaa diiday inuu biilka bixiyo markaa waxaad samayn kartaa inay Itoobiya ku noqotid guriga aabbaha iyo inaad magaalada gasho markaa waan yarahay waan diiday inaan ku noqdo guriga aabbahay magaalada gasho markaa waxaan ku uri hooyo ma raba inaan ku noqdo gurigii aabbahay hooyadayna markaa caruur kale dhowr caruur ay dhashay ninkii dambe 3 caruur meelahaas buu dhashay waxaa dhacday habeen waa markaan kuu sheegay shalay oo kale Itoobiya ka imid habeennimadii hooyadii ilamay hadal galabnimadii waa tan ii sheegtay diyaarinka ilamay hadal waxay samaysoo kale ma jirin oon ahayn dee in iska gidayso inay dee guriga saarto hooyadii iyo ina weyn oo walaashay curadeeda way wada hadleen heshiiskii wuxuu noqday inaa caawa 10 habeenimo weeyaan inta guriga laga saaro albaab laga saaro oo laygu dhaho magaalada Galadaba sidii baa dhacday hooyadii iyo gabadhii weynayda walaashay hayd way sheekaysteen waxayna ku heshiiyeen in Itoobiya maadaama Itoobiya diiday guriga aabbahay inaan ku noqdo inaa guriga lagu lahaa iska bax iska tag magaalada iska gal sidii baa dhacday waan iska waa inan walaashay ah oo iyada taweyn toos weeyar ah bay timday oo markaa guriga laga soo saaray may gurigan ku jira iyo waxay ku heshiiyeen in guriga ka saaraan laakiin aanu ma ogiyo guriga qol ka mid ah fadhiyaan inantii walaashay bay timday waxay ku tiri walaalo waaliga diiday in Itoobiya lagu celiyo aabana waa ka diiday inuu biilka bixiyo wax kaloo la sameyn karaa ma jirto oon ahayn inaad dee maxay dama guri ka tagto ama inaa berito la subaxda gaariga lagu saaro waxaan ku uri berito la subaxda gaariga lama saaro kama tagayo Itoobiya kuma qonayo xagana joogaya hooyadii gabadhu noqotay way soo wada hadleen habeennimadii abaaratu markay habeenimo markay tahay hooyadii inantii walaashay bay soo dirtay waxay ku tiri dharka ay sidatin taad u qaatay baa ka soo xidhay sidii baa dhacday inantii walaashay hadda tii weynid maahay tii yareed waan isku fiicanahay xagina joogtaa inantii baa timiday waxay ku tiri walaalo xel kale wala waaye waan ahayn in amba Itoobiya loogu celiyo aminad guriga ka tagto baan ku uri maxaa la sameynayaa markaa waxay ku tiri waa 10 habeenimo adeeraa guriga imanaya adeer waa ninka way qaba adeeraa guriga imanaya intuun adeer iman una ku arag inakeen dibadda meel buu ku geynayaa waxaan ku xigin tagnaa walaalo manaba meel kala garanaya waxay isku dayday inay fahansiiso waxay ku tiri hooyo adeer markii guursanayso waxay ku heshiiyeen 3 caruur inay hayso
ee kuma heshiinin iyo afar caruur hayso adiguna dee waad nagu soo dhexdhacday aabbana uu diiday inuu biilka ku siiyo marka dee inaad sii joogto ma noqonayso meel baan kusoo raadinaya ku geeyo caawa ood iska seexatid marka dad berito Itoobiya ku noqonayso iyo hataad Hargeysa ku joogso sidii baa dhacdayo inantii walaashay habeenkii tobankii habeenimo gurigeyga soo kaxaysa waxay soo raadisay guri family qof family ah oo liigeeyo saan gurigaas u joogo habeenkii waan xasuustaa ilaa waqti dambe ay nagu qaadatay inaa guri lasoo helo liigeeyo guri baa liigeeyey familiga haddaba rabo inaan tiitalka qofka sheego laakiin family inantii walaasheed gurigii markay geysay way la timideen aniga keligii guriga ku soo hadhay dadkii xaafadii liigeeyey baan la hadlay uma sheegin naar ku saatay laakiin waxaan ku uri waan soo booqday hay'addan ere gurigii qofkii family ahaa habeenkii baan la seexday subaxnimadii waxaa laga rabay inaan guriga ku noqdo soma waxaan ku uriyay guriga hooyo ma garanayo dad igu celin lahaydeen xataa guriga hooyo ma garanayo hooyana meeshuu ka gurtay ka waran marka haddaan idinka iskala kin joogo gabadhi way soo dhaweysay si fiican bay la hadashay iska joog bay u tiri iska fadhi haye sidii baan gabadhii gurigeedii kaga mid noqday la joogto la joogay gabadhii family ahayd muddo markaan la joogay ilaa 2 bilood si fiican bay la dhaqmi jirtay markii dambe ay aragtay inuu aabaniga soo wardoonin hooyaniga soo wardoonin aabana Itoobiya joogaa wuxuu mooday inuu hooyo la joogo maadaama Hargeysa joogo hooyana waxay moodaysaa in Itoobiya ku noqday adina kaamay soo wardoon hooyaniga ma soo wardoonin aabaniga ma soo wardoonin gabadhi way yaabtay waxay ku tiri hooyada meeday way joogtay minuu soo raadinin waxaan ku hooyo waxaan ku Itoobiya tagay sidaas ay moodaysaa baan ku oo aabana Itoobiya joogay dee wuxuu mooday inuu hooyo la joogo adigu gabadhi markay aragtay inaynu hooyaniga soo wardoonin aabaniga soo wardoonin waxay la dhaqantay saan qof loola dhaqmin heer han gaari xataa inaan anigu caafimaad qaban jirin wadooyinka ku dhaco marka awood yaraanaya may dee hadal gumaysi qaylo inaa laygu yiraahdo waxaan sameeye halashaan inaa layla dhaqmo si aan loola dhaqmi karin qof bilaadana ilaa goorma nolosha ku jirtay waxaan ku jiray ilaa inta ka soo gaaray 6 sano kadib maxaa xigay door sano gabadha la joogay si fiican ila may dhaqmeen waxbarasho meesha waxaan baranayaa laakiin waxbarashadan baranaya waxay ahayd waxbarasho aad marka 6 soo gaadhay aad weynaatay caqliysatay si nolosha isu bedeshay 6 sano markaan soo gaadhay waxaan soo dayay inaan maxay hayday maadaama wax yar bartay inaan shaqo raadso gabadhin gurigeeda la joogay meel waa ka tegi kari waayo waxbarashada yar intigiyo kusoo noqdo si xun bay la dhaqantay gurigiina waa ka tegi kari waayo magaaladiina ma kala garanay oo meel kale u tagoon dee waxaan ma garanay waxaan isku dayay gabar baan la xiriiray familigeyga ah oo lambarkeeda raadiyey gabadhii baa lambarkeeda la siiyey gabadhii baan la hadlay gabadhii baan u sheegay ku walaal dhibtaasay haysatee kaale gurigeyga kaxee gabadhii baa gurigeyga kaxaysa
gabadhiiba meel geysay guri kale oo iyadu deganiyadu iyadu joogtay geysay gurigiibaan in muddaa dhowr bilooda joogay waa ka tegay qof kalo faamiligaanu tegay qofkii faamiligaana la jooga baa shaqo raadsaday markaan weynaada intaasoo sanadood aabba igama soo wardoonin hooyadiina hargeysa joogtay igama soo wardoonin noloshaadana adaa iska wata sida doonta ku wadajiya saxa noloshaanaa wato dadka faamiliga dib walba geysanayaan waxay ka darnay in Itoobiya la wixiliyo maadaama hanan xagaasna gabadha aabbayaan isku fiicnay aabiyo hooyo labaduba ma reer iyo qoysas kala samaysteen aabba reer kala samaystay waxbarashada ilaa halkeed ka gaadhay waxbarashada markii hore iskuuliga uma darinba waxaa laygu daray madrasada yaryar iyo waxyaaba yarar laakiin markii dambe weynaaday baan iskuulka meel fiican kaaga soo biiray marka adaa iskii masaxibaa ku aniski adaa iskii ilaa jaamacad waxbarashada ka gaadhay hadda jaamacadan dhigta waad dhigataa hadda jaamacadan dhigta waana shaqaysaa waan shaqeeya dowladdan u shaqeeya laakiin dhibaatada waxa ugu daran waxaa dhacday 4 sanadood baa shaqo raadinayay 4 sano shaqada raadinayay meelaan jooga manaysan sidoo kale manaysan bas oo qof faamiliga baan joogay bas lagama bixinayn dar lama iibin jirin waxaan xidhimanaysan xataa markaan shaqada raadinayay maraan wasaaradda arrimaha gudaha shaqo ka raadinay subaxdii lug baan ku iman jiray wasaaradda doorkiina lug baan kaga tegi jiray shaqadaad raadinaysa maxay ahayd aad doonaysa inaad wasaarad ka qabato inaan wasaarad ka shaqeeyo maan rabin ee waxaan rabay shaqaan wax ku bartay inaan la siiyo muhiimadda shaqo u raadinaya waxay ahayd inaan noqdo qof taagan maadaama dhibaato badan ku dhex jiro maxaad islaad marka waad qaban karaysa waad wasaarad ka qaban karaysa waxyaaba fara badan baan qaban karayo iskuulka waan dhiganaya waxna waan bartay computer baan bartay computerka markaan baranayeyna waxay ka caawiyey nin dowladda shaqo usoo doontay computerka isaga ii diray computerka marka hore u imiday waxaan u imiday aniguna garanay shaqa dowladeed wax laga qabto kadib waan u sheegay xaaladda waxaan ku dhibtaas haysta saasaa jirta waxaan rabaa inaad caawiso isaga igu orada computer soo baro dowladda hadday rabto inaad u shaqayso waa inaad wax garanaysaa kadib sidii baan computer kusoo dhigtay luuqadda ingiriishka soo bartay isaga iga caawinay intaasoo dhan inaa magaciisa sheega ma rabee kadib sidii 4 sanadood baan raadinayay shaqo dowladdu keliya haddana shaqo kama raadinayna meelo fara badan meelaha berefatada shirkadaha adu meelo badan ba shaqo ka raadinay ugu dambeyn alxamdulilah hadda waa shaqo tegay waa shaqeeyaa dowladda u shaqeeyaa waxbarashadeedii hooyadii iyo aabbay ma oga heerkan waxbarashada ka gaadhay hadda jaamacadaan dhigtaa dowladda ayaa bixisa ma oga hooyadii iyo waxbarashadeeda heerkii taagsan tahay dowladdaad kale u shaqeysa dowladdu way fara badan tahay institutionkaad ka tirsan tahay booskaad ka shaqeysa midna la wadaagi kartaa meesha ka shaqeeya la wadaagi karaa waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda warfaafinta inaan ka shaqeeyo oon wasaaradda u shaqo tegana adiga ka mas-uula andara oo adiga ah qofkii iga caawiyey inaan wasaaradda u shaqo tago muddo hadda waxaan jooga 3 sanadooda jaamacadaan dhigtaa maalintan shaqada bilaabay ayay noloshayda dib soo dhisantay alxamdulilah hadda waxbaan bartaa waan shaqeeyaa noloshaydana dib baan usoo dhisay laakiin waxaa jira weli
dhalinyar fara badan oo aniga la mid ah dhibaatooyinka soo maray wax yar baan ka hadlay oo ma rabo inaan family ahaan taabto dhibaatooyinka waxyaabaha qaarkood igu dhacay dhibaatooyinka maanta ay haysto ugu badan waxa kamid ah inaan family hooyadii garanayn oo maanta walaashay hooyadii aabbahay dhaleen haddii hortimaad isma salaano dhibaatadana iska ranaa laakiin hooyaabay dhibaatad ka timid iyaga caruurta aabba u dhalay ayadaa uu dhalay ama hooyada islaanta kale kadib ay iskurseen iyo kuway hooyo odayga kale u dhashay ma isgaranaysana walalaadii hooyo kuwii ninka kale u dhashay isma garanan maan aragba markiisay joogeen laakiin aabba kuw xaas kale u dhashay yar baan ka garanay inta badan baan garanay hadda intaanan aabbahay la joogin 10 sano ka soo wareegtay 10 sano wixii ka dambeeyay wuxuu dhalay ma garanay hooyadayna caruur haysta laakiin ma garanayo tiradoodan ma garanayo aragtidoodan ma garanayo aad baa mahadsantahay Asma Ismaaciil Cabdiraxmaan magaalo kulli asmi kaligeed ma aha waxay u hadlaysaa dhalinyaro fara badan oo sidaas oo kale hooyadii aabaheed nolosha kale ay ka soo mareen ama burbur qoys ku soo koray labada waalid ay isku qabsadeen hooyo laan iyo aabba laan ku dhacay asma maanta nolosheedu way kabtay oo way dhistay laakiin dad badan oo kale oo wiilal iyo gabdho ayaa jira waan dhisin oo booska ay ka soo talaabsatay ilaahay ka soo dulqaaday aan iyagu ka soo kasban ama ka soo kaban intaan u gudbin agaasimaha iyo sheekhanan u gudbin bal waxaan soo dhaweynayaa dadweynaha ayaa jecelahay soo dhaweeyo ina kaasa gacanta hortaagan arkay mikrofoonkan jecelahay lagu dhiibo waxaan jecelahay su'aalaha ama waxaad soo jeedinaysaan inaad aad u soo ururisaan waliba toosad u guda gashaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan salaamayaa marti sharafta dhalinyarada aqoon-yahanka iyo waxaan salaamayaa agaasimaha sheekha iyo walaalka barnaamijkan daadiinay maxamed andar anigu laba codsi waan wataa hal su'aalana insha Allah waan ku dari doonaa labada codsi waan wataa waxa weeyaan horta barnaamijyadan oo kale in dhalinyaradu ka soo qayb gashaa aad iyo aad bay muhiim tahay anagu waxaan nahay dhalinyaradii waddanka u soo kacayay furinadan iyo hawlahanina waa hawlaha loo baahan yahay waayo waxaan kasii qaadanaa 10 runtii wallaahi qisooyinkii inanta walaashay nooga sheekeynaysay qalbiyadana taabteen oo waxa weeyaan dareen gooniya bay noo sameeyeen marka waxaan oran karaa barnaamijyo aad iyo aad u qiimo badan waxa weeyaan codsiga labaadna de maxamed andarna waxaan ka codsanaa insha Allah barnaamijyadan inuu xalaqaad u sameeyo la doodo oo marka shayga doodiisa la badiyo aqoon baa ka soo baxaysa cilmi baa ka soo baxaysa aan lahaynin marka aad iyo aad baan barnaamijka u soo dhaweynayaa aniga taariikh ahaan qis ahaan igu dhacday dhowr qoys oo agtayda isku ag furayna in badan waan arkay saameynta inantu ka sheekeynaysayna aad iyo aad in badan waan usoo joogay qoysas badan oo waxa weeyaan kala tegay waayo waxaa la yidhahdaa caruurtu inta badan saameyn aad iyo aad u badan bay ku yeelanaysaa sababtoo ah anigu de caafimaadkan bartaa marka caafimaadka qofka la eegayana 3 shay waynu qofku ka nabad galaa physicalka iyo mentalka iyo socialka ilmihii saddexdiiba uu ka dhintay mental markaad eegto ilmahan maskaxdiisu ma fadhido waxa maskaxdiisii la tagay furitaankan hooyadii aabii ka yimaaday sida kale caruurtu ma farxayo physicalna qofka ilmihiina waad ka arkaysaa socialna bulshadiina waa laga dhex takooraya tusaale ilmihii iskuulku kula dhiganayaa dhalinyaradii waxay ugu yeedhayaan waa kii hooyadii aabii kala tegeen dee naftaada markaad ka soo qaado dee ilmaha yar cuqdad buu ku korayaa innaga waxaan u malaynayaa arrimahan waxay ka soo waarideen waa wadanada shisheeye inta badan furiinka waxa ku badan wadanada shisheeye sababtoo awgood iyagu dee diin ma haystaan iimaan ma haystaan dadka islaamkana waxaa loo baahan yahay inay diinta ku dhaqmaan anu waxaan oran karaa furiinka badanka waxaa keeni karaa labada waalid oon isfahansaneyn marka hore doorashadu qaldan tahayba anu ka dhalinyarahaan waxaan aaminsanahay labada qof waxa weeyaan si wanaagsan isku doortaa dee si wanaagsan ubeen iskula dhaqmaan marka furiinka waxyaabaha badan waxaa kamid a inay labada waalid aanay isfahansaneyn anu waxaa dhacday habeenada kamid a ayaan jaamacadda ka soo baxay waxaan la kulmay qoladan darbi jiifta anigu jaamacadda aadnaadan baan dhigtaa caafimaadka ayaan diyaariyaa
marka habeenada kamid ah ayaan anigoo soo marka waxa weeyaan soo baxay inta badan waan lugeeyaa oo lugtaan jecelahay marka inamo badan oo markaas ku hareeraysan baa yimaaday marka buug baan sitaa waxay igu yiraahdeen way hareerayeen markaas ay igu yiraahdeen carruurtuna aad bay u gaajoonayeen waxyaaba aad ii soo jiitay bay kamid ahaayeen marka waan iswaraysanay iskama aan weynaysiin waan iswaraysanay waan ag fadhiistay waan weydiiyey waxaan ku yiri maxaa halkan noloshan adag maxaa idin dhigay dhaxan baa socota anigaygiiba aad arkaysaanba ka hor baan xidhanahay markaa waan iswaraysanay waraysi baana dhex maray carruurtii badankooda waxay igu sheekeeyeen laba qaybood bay noqdeen qayb waxay yidhahdeen anigu hooyooyinkii aabooyinkii waa dhinteen wax 5 milyan haysanaa ma jirto magaalada cidba kuma haysano qolana waxay yidhahdeen mayn anigu hooyooyinka aabahay baa furay markaan saas ku barbardhigay waxaa badnaaday dadkii yidhi aabahay hooyaday baa is furay sababtaasana keentay marka ilmi yaraa waxaa keenaysa inay waxa weeyaan u dayacmo mas-uuliyaddii hooyo aabbo ay dee sameynayeen ay dee ilmihii xakameynayeen baa meesha